بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa maanta halkaan inaan ku qabano shi jaraa'id oo ugu waramayna xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha oo khilaaf ka taagnaa madasha samata bixinta iyo u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo guud ahaan dalka waxa ka taagan intaba ugu horeyn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheegno in madax kasta oo dalka loo doortaa waxa ugu muhiimsan ee laga rabaa inay tahay in uu isku soo celiyo ama soo celiyo kalsoonida dadkii kala irdhoobay ee colaadaha sokeeyay ay kala irdheeyeen ee Soomaaliyeed lana una dhiso hoggaanka siyaasadeed iyo hay'adaha siyaasadeed ee la doortay inay dhisaan aaminaadda lagu qabo dowladnimada asaaska waa intaas waxaana sal u ah dastuurka dadka Soomaaliyeed dhowr iyo 10 shir oo ay dibadaha ku qabsadeen kadib ugu dambeyn waxay salka u dhigeen heshiis siyaasadeed oo uu ka dhashay dastuur ama ahdi ku meel gaar ah oo markii dambe u xiibsiibtay dastuur ku meel gaar ah ahdigaas ku meel gaarka ah ama dastuurkaas ku meel gaarka ah oo qaybtii ahdiga waxba laga bedelin wuxuu ku saleysnaa 4 qodob ayaa saldhig u ahayd oo ah in dalkani uu yahay dal federaal ah baarlamaani ah awooduna ay qaybsan tahay 4 sanana mar doorasho la qabto taas dawladda hadda jirta oo hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh waa ay dhinac martay markii ay dastuurka kaligeed si unilateral ah oo cidna heshiis kula ahayn ay u bedeshay waa la socotiin oo nidaamkii baarlamaaniga waxaa loo rogay nidaam madaxtinimo oo la leeyahay madaxweynaha toos ayaa loo soo dooranayaa ra'iisul wasaarahana isaga eri kara halkii 4 sano doorashada ahayd waxaa laga dhigay 5 sano awood qaybsigii oo ahaa in qolo hadii qaadato madaxweynaha qolana ra'iisul wasaaraha qolo kalena guddoonka baarlamaanka iyo hay'adaha kale dawladda ah in la kala qaato waxa la yiri madaxweynaha ayaa eri kara ra'iisul wasaaraha annaga waxaan arkaynay qodobadaas inay taabanayaan ama ay dhaawacayaan waxyaalihii saldhigga u ahaa heshiiska siyaasadeed intaas waxaa dheer madaxweynaha wuxuu sameystay doorasho asaga ku jin ah isaga la eg sidoo rabo ayuu u toshay doorashadaas waxay leedahay xeer guddi doorasho oo asaga sameystay oo magacaawday mar allaaliye markuu amar siiyane amarkiisa fuliyo maanta ugu dambeysay waxaan arkay warqaday soo saareen leeyihiin xisbiyadii dib u furnay waa amar xasan sheekh ka yimid wuxuu kaloo ka kooban yahay hanaan doorasho wuxuu kaloo ka kooban yahay guddi doorasho hanaan doorasho iyo sharciga xisbiyada saddexdaba dalka waa lahaa markuu madaxweyne xasan sheekh talada la wareegay guddi doorashona waa jiray iyo sharciga ku dhisnaa nidaam sharci xisbiyana waa jiray sharci doorashona waa jiray saddexdiiba wuu bedelay madaxweynaha wuxuuna toshay shaati asaga la eg dood adag ayaa asaga iyo madasha dhaxmartay madaxweynaha waxaan ku faraxsanahay inuu habeen dhaweed doodiisii dadka Soomaaliyeed oo la wadaagay laakiin waxaan rabaa galabta inaan ii sheego inta uusan dadka Soomaaliyeed u sheegin madaxweynaha wuxuu ku celceliyaa doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod sideedaba waa rabitaan qof kasta oo Soomaaliya oo ay madasha ka tahay ay doonayso laakiin su'aashu waxay tahay doorashadu qof iyo cod ma tahay doorashadu qof iyo cod ma tahay jawaabtu waa maya sababtuna waxa waaye madaxweynaha wuxuu nala qiray in 275 kursi ee beelaha ay kala lahaayeen ay sideedii tahay oo qabiil wax soo ziyaadaya iyo qabiil wax ka nuqsaamaya aysan jirin doorashada marka qofka la dooranaya qabiil wali u xiran yahay taas macnaheedu waxa waaye qof iyo cod maaha qof iyo cod waxa la yiraahdaa
kuraas seejo taalla dadkuna si xor ay ugu tartamaan cidda la dooro doonana aan la aqoonin qabiilka uu yahay iyo meeshuu ka soo jeedo markaan yidhi madaxweyne haddii aada ogoshahay in 4.5tii 275 kursi lagu saleeyo qof iyo codda aad sheegayso waa maxay hadday tahay macnaheeda kursiga aniga xildhibaankayga aan ku fadhiya haddeertaan baarlamaanka waxaa soo doorato been la yidhaahdo ceer koofureed haddii kursi weli ceer koofureed leeyihiin qof iyo codda maxay tahaan aan weydiino madaxweynaha waxa laga hadli karaa wuxuu yahay awal kursiga cidda dooranaysa iyo qofka la dooranayo hal qabiil ama hal jufo u xirnaa haddii aad ka wado waxaa la furayaa cidda doorashada codka tuuraysa yaa laga dhigayaa haddii kursiga maalan uu yaalo wardhiigley ama uu yaalo gurceel ama uu yaalo dhuusamareeb dadka waxaa la furayaa dooranaya waa ka wada hadli karnaa hanir wax dhiba oo ay madashu ka qabto sideedaba ma laha laakiin dadka soomaaliyeed ha u sheegin meesha inay taallo doorasho qof iyo coda taas waa qodobka labaad waxaa la socotaan in 3 dowlad goboleed oo madaxweynaha ku jaal ah ay 2 sano ka badan madaxweyneedkeedii dhaafeen waa weydiinay madaxweynaha waxaan ku niri dadkan Puntland doorasho ka dhacday madaxweynaha la doortay doorasho dadbaneed baarlamaanka Puntland la doortay Jubbaland ka dhacday hadda maanta waxay ka socotaa waqooyi bari maxaa diiday 3dan in doorasho ay galaan wuxuu yiri doorasho dadban ma rabo waxaan rabaa doorasho qof iyo cod maxaad hadda waqooyi bari ugu wadaan weydiin waa nooga jawaabaya madaxweynaha mid dadban hadda maxay waqooyi bari ugu socotaan uu nooga jawaabi waayay waa asaga rabitaankiisa ay madaxweynaha ku salaysan yihiin waxaan yiri madaxweyne dastuurka bedelatay adiga kaagan ku raacayna waxaa ku qoran in meeyarka muqdisho la dooranayo meeyarka muqdisho in la dooranayo ku qoran march markaa seexday December 2024 meeyar cusub magacaabay dastuurkii ma jabiyay madaxweynaha waa jabiyay waa kii sidii asaga u bedeshay mid kale ma haddana 5 bil ka bacdi ama 6 bil ka bacdi bishii hadda meeyarka loo magacaabay dastuurkan maxaa ugu qoran asaga oo saxiixa oo lagu soo saaray gazetka officialka lagu soo saaray ee dawladda maxaa ku qoran meeyarka waa la dooranaya marka meesha uu rabane doorashada dadban oo madaxweynaha ka qabana meesha uu rabane markuu rabane dastuurkiisa xataa waa jabi karaa marka la leeyahay marka dawladda Soomaaliya waa Xasan Sheekh saasa laga wadaa dastuurna ma jiro kii la isku raacsanahay haduu yahay kii la bedelay haduu yahay baarlamaan ma jiro garsoor ma jiro waxa la yiraahdo dalkan waxa ka jira madaxweyne Xasan Sheekh oo ka shaqeeya shidaalka ciidanka la siinayo iyo dastuurka bedelaadiisa inta baa ka shaqeeya madaxweynuhu adaa macro manager noqday adaa yiri saliicadeydan anaa beegaya ya heshiiska caalamiga anaa soo galaya xukuumadii ma jirto xukuumadda maqasheen ma jirto dawladda qeybadeeda kale ma jiraan marka madaxweynaha qof ma waxa la haystee xukunkii inuu asaga qaatay oo kaliis jaabka ugu jiro waaye waxa la haysto dalka mandate-ka madaxweynaha waxa ka dhiman 8 bilood soo saas ma doorashadii federaalka ahay goor la qabanayo ma naqaan dowlad goboleedyadii mandate-koodu waa dhamaaday sharci la'aan ay ku joogaan asaga la jaalka ah banaadirna waxa ka socoto doorasho qof iyo qori ah ma qof iyo qori ahayn dadka laga dejinayo koostarada iyo caasiyada iyo meelaha xamaaliga laga kaxaynayo qoriga lagu afduubayo oo qasab uu diiwaan gelinayo oo qaarkood 3 jeer loo diiwaan gelinayo oo ay shaqaysan laayeen fiiri qof miskiina oo joornayeeri ku nool wuxuu maanta dhismaha ka soo shaqaysto ama wuxuu maanta bajaaj ka shaqaysto ama wuxuu maanta xamaali ku soo shaqaysto yaa la qafaalaya waxa leeyahay isdiiwaan geli ma midaas qof iyo qori ahayn أنا وحاس ويدي dadka hadii qore lagu diiwaan geliyo tolo basuuqay ku coday doonaan soo wax la yaab ma doorasho waxa la arki jiray xor ah oo dadku haday rabaan ay is diiwaan geliyaan haday rabaana ay doorasho galaan madaxweynuhu wuxuu yiri xisbiyaan sameystay haye
waxaan xisbigaas anaga waxaa u bixinay xaggeen uga haraa sababtoo dowlad goboleedyadii asaga la jaalka ahay waa ku jiraana la yidhi kabinetkii golihii wasiirada waa ku jiraan haye baarlamaankii waa ku jiraan nuskiis haye qof kastoo dhulii boos la siiye waa ku jiraa haye war doorasho qof iyo coda dadka soomaaliyeed horta inay mid fahmaanaan rabnaa doorasho qof iyo coda state formationka markii laga hadlayo dhismaha dowladnimada markii laga hadlayo doorasho qof iyo cod waa meesha ugu dambeysa meesha ka bilaabata maaha maxaa saas loo leeyahay waxaa ka horeeya amniga waxaa ka horeeya garsoorka waxaa ka horeeya dhaqaalaha waxaa ka horeeya maamulka qof hantidii dalka boobaya maalin cad oo shacabkii ay ka qaylinayaan oo maanta dadka guryahooda laga barakiciyey iyo kuwa dhulkooda lagu fidsaday maxkamadda u dacwoodaan ma leh nin garsooraha igu yiri dacwaan qaadi karnaa ma jirto dacwo hal dacwo oo dhul ku saabsan oo qaadi karnaa ma jirto hadduusan garsoor jirin la aamino hadduusan amni jirin haddaysan cadaalad jirin dadaa waxay isku qaldaan ay kala garanaynin amniga iyo badqabka iyo xasiloonida waxa u dhexeeya aynan kala garanayn marka see qof iyo cod ugu aamina qof aanan garsoorkiisii oo madaxda ka ahay la aamini karin hay-adihiisii maamulka aan la aamini karin kuwiisii cadaaladda aan lagu kalsoonaa karin ammaankiina oo qalqal 4 saac ku jiro madaxweynaha markuu magaalada dhex maraa iga marqaataa tihiin waa la xiraa afarteeda koona waa la xiraa markuu dhex maraa magaalada meel kastana beri dhagaxa ku go-an mabeenaa isaga sheegaynaa xaggee lagu qabanaa doorashada doorasho sideedaba qof iyo coda state formationka waa meesha ugu dambeysa meesha ka bilaabata maaha dadku markay is aaminaan oo ay nabad noqdaan oo ay garsoor ku kalsoon yihiin helaan oo hay-ada maamulo ku kalsoon yihiin ay helaan oo hay-ada dhaqaale ay ku kalsoon yihiin ay helaan oo se madaxdu jaabka lacagta ku shuba karin ka soo qaad anugu xisbiga madax u ahay madaxweynaha xisbi oo madax u yahay lacagta meeshaan lagu tamashlaynayay maxaa sheekh maxamuud iska leh dadka meeshaan la soo buuxiyay maalada hoolka GSB maalada GST lagu qabanayay maxaa sheekh maxamuud iska leh aniga anagoo shiida meeshaan fadhi jirnay $6,000 isku darsan jirnay saa wax u qabanay yaa sii lacagta xasan sheekh lacagta oo xasan ku tamashlaynayay Soomaaliyan weydiiyay aniga asaga markii aan activity qabanayno $6,000 isku darsan jirnay midowga musharaxiinta duqa inta uu keen lacagtan yaa weydii oo ku tamashay ma saa iska leh markay lacagta dadka u dhaxayso xisbiyada markii dhaqaalaha dalka u dhaxeeyo markii awoodda dalka u dhaxayso markuu garsoorka dalka u dhaxeeyo markuu amniga dalka u dhaxeeyo wasiirkiisa difaaca aan handaday wasiirkiisa difaaca aan handaday annaga maxaan u haysanaa serious waxaan aaminsanahay madaxweynaha fariintu soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatihiina kaa keenaa ileh see doorasho ula galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsihiisaa doorasho ula galaayo waxaas marka waa iska sheeko iyo dhayal waaye arrintaas handadaada ah annagu haddaan madasha nahay serious aan u haysanaa waxaan u haysanaa inay golo loo dhan yahay oo madaxweynaha fadhiyo ay ka soo baxday ilaa aan madaxweynaha afkiisa ka maqalno inuusan wasiirkiisa arrintaas iyada ah ku matelin waxaan haysanaa inay tahay arrin laysla ogyahay waxaas ayaan darro ah in uu ku faano wax ficil aada u foolxun oo madaxweyne asaga ka horreeyey oo geystay inay dowladdiisa ku faanto waa wax aada u foolxun arrinta dhulka faray ka baxday cudur faafay noqotay hadda maxaa saas ka dhigay dhulkii dowladdu waa la soo dhaafay hadda waxaa la yidhi wax la yidhaahdo kufidsi madaxweynaha dhulku soo siinaayo haye gobolkaa tegaysaa waa kuu fidinayaan dad la yaqaano qoysas la yaqaano dad la yaqaano magac leh dhulkooda 30 sano 40 sano la yaqaano 50 sano ay leeyihiin yaa dhulkoodii lagu fidsanaya waxaa la barakiciyey dadkii danyarta ahaa askariga Soomaaliyeed $200 u qaataa
xagoo degan yahay in la tahay ma guriga weyn oo xasha ku jiro ama wasiirada ay ku jiraan mise bulad buruufa ku socdaa qoyskiisa waa dan yar ku nool dhul dawladda ay leedahay xaqo ugu leeyahay dawladda inay meel degaan askarigaas naftiisa huraaya ee difaaca ay siiso waa barakicisa dawladda yaa la naaxiyey siyaasi qaraabo ganacsade sargaalka dadka barakiciya intaasaa la naaxiyey faadkaatisaa la yidhahdaa makulaalaha cayilan in yar oo faadkaatis ah oo la soo saaray dalkii danyartiine looma nixin maxay keentay dhulka inuu qiimo jabo haddaa ogtihiin haddii kaleba dhulka soomaaliya wuxuu u yahay stock exchange-ga maaragtay New York iyo London iyo kuwaas is wareegayo dhulka soomaaliya saas oo kale waayo dadka intooda badan dhulkay lacagta gashtaan kii hore u gashtane dhulkii waa ka qiimo jabay kuwii lacagta ka cadaysto masaakiinta ahayo lacagta laga qaatane dhulkii waa ka qiimo jabay maxaa kaloo dhacay waxaa dhintay spiritkii ama ruuxdii tartanka ganacsiga dhimatay sababtoo ah nin baa baxaya ama gabar baa baxaysa madaxweynaha dhul soo siinaya 5 milyan ka faa'iiday dalkan adeegiisu wuxuu ku dhisnay private sector ganacsi gaar loo leeyahay oo tartan ku dhisan oo ku dhisnaa hadduu caafimaad yahay hadduu waxbarasho yahay hadduu jaamacado yahay hadduu oo ganacsiga diyaarado yahay telecommunication yahay bangi yahay private sector oo ku dhisnaa rajada aan lahayn intaasay ahayd adiga se u ganacsanee markii nin maalintaa jiraya oo dhul 5 milyan 6 milyan hebel waxa uu leeyahay jaamacaddii hebel la soo siiyey tarabuunka hebel la soo siiyey maxaan ku waxa ugu darnaa waxay ahayd MCH ku yaala wardhiigley oo kaligiis caruurta lagu nafaqay jiray xataa waa la jabsaday nin baa wuxuu ugu yiri bartaas controlka afgooye sandaqadii 2 qolo ku taalay oo canshuurta lagu qaadi jiray askartii inta la gaday ee askartii banaanka canshuurta ku qaadaa bilaa jacarab xataa waa fakaway suuqi bilaa jacarab xataa waa fakaway maxaa dhimanaya niri spiritka iyo ruuxda tartanka ganacsiga waa dhimanaa adiga adoo maanta oo dhan shaqaysanay oo dhidka tabcay markii nin inta iska baxo ama gabar iska baxdo dhul 5 milyan la iska siiyo maxaa kula tartamaysaa say ganacsi u jira ganacsi ma jiri karo adeegii iyo tartan ganacsiga halkaasuu ku dhintay dadka la barakicinayo meesha laga barakicay isbitaal looga dhisaa iskoola looga dhisaa jaamacada looga dhisaa mas dad kala la siiyaa dad kala la siiyaa waa ayaan daro waxaan ugu baaqaynaa dadka hantidooda la dhacayo in ay codkooda muujiyaan aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa maalmahan waxaan arkaynay dad is abaabulay oo codkooda muujinayo waa in taageersanahay waa in garab taaganahay waa in garab istaagi doonaa ogaada tabaryaradu ma aha ciidan iyo hub ma aha ama tabartu iyo qofka inuu madax yahay ma nin wax dhacay oo tuug wax ka fulisan ma leh saas daraadeed xaqa wax kasta asaa ka awood badan haddaa xaq ku taagan tahay cid kasta waa ka awood badanta kaliga aaw haddaa rabto marka codkiina muujiya iska dhiciya kuwa waxay ku leeyihiin dhulkan madaxweynaha waa bixi karaa oo kuwii ka horeeyaba waa bixi jireen kuwii ka horeeyay dhul dawladeed ma bixi jirin dhul dawladeed ma bixi jirin dhul dawladeed wasaarado wakaalado isbitaallo xarumo caafimaad MCH goob ciidan xero ciidan ma bixi jirin waa wax ugub ah oo lala yaabo waxaan rabnaa in dadka Soomaaliya u sheegno in Soomaaliya waxay ku duntay ay ka soo kaba weysay ay maanta socdaan waa eexda waa qaraabo kiilka waa musuqa waa ku takrifalka awoodda ku takrifalka hantida qaranka aa socoto maanta dawladdii Soomaaliya waxay noqotay family enterprise dawlad qoysay noqotay haddaad deka tagto iyo haddaad garoon diyaarad tagto iyo haddaad madaxtooye tagto iyo haddaad wasaarad tagto waa inaad martaa qof famila haddii kale wax arki maysid enterprise waxay noqotay family dawlad qoysay noqotay waa xeerkii ugu xumaa maxaa xeerkii ugu xumaa ay noqonaysaa musuqa iyo eexda waa wax jiri jiray laakiin waxaa cusub in lala jahro
in madaxweynuhu yidhaahdo gabadheeda waa shaqaalaysan karaa, wasiirka uu yidhahdo qofka qabiilkii meel geysan karaa, wasiir kale uu soo istaago yidhahdo sadaqaan nagu leedihiin, waxaan nagu leedihiin caafimaad iyo malaha, mid kale uu soo istaago. macnihii jaharka waa jaharka mogtahay. macsida waxaa ugu daran midda lala jahro oo qofki yidhahdo waxaasaan sameeyey. alle macsida waa la dhuntaa, ilahna waa loo tooba keenaa. maanta waxaa socda waa la jahar, taasaa ka dhigaysa heerkii ugu xumeed. dadka Soomaaliyeed ee hantidooda la boobay, ee la barakiciyey, ee la dhacay, si nabada isaga celiya dowladda. iska celi kartaa. Soomaalidu Hargeysa wax ka dhacay ma ogeyn. inta ganacsato heshiisay, dowladda la heshiisay, sicir goosatay, shacabku waa mudaharaadeen markii degdeg uga noqdeen. haddaad awooddiina muujisaan oo hanjabaadda liin hajabaya aadan dhag u dhigin, annagana waa sheegna waa in garab taaganahay, horena waa inayn garab taagnaa jirnay, waa iska celi kartaan. kaligii talis qof ka daciifsan male. hadduu musuq iyo eex iyo qaraabakiil wadane waa kasii tabar daran yahay. xaqa idinkoo ila jiraa. madax badanoo adduunka ka carara xukunka. bangladeshay ka carareen, sri lankay ka carareen, intaasoo dalay ka carareen. waa hadday dadka awooddooda inay awood leeyihiin ay aaminaan. dadka muqdisho waxaa laga rabaa inay aaminaan inay awood leeyihiin oo iska celi karaan burcadda iyo kuwa isku bahaystay inay dhiig miirtaan, dhiiggooda ay jaqaan. waxaan rabaa 3 arrin inaan sheego. annaga madasha haddaan nahay khad cas aan leenahay. maxaa qad cas noo ah? waxaad qad cas noo ah extension. muddo kororsi maya, cid aan ka yeelayna male. doorashadan malaakuudka iskor saaran oo qoriga la isku hayo meesha u socota ma taqaaniin. extension u socotaa 8 bilood ka bacdi xasan sheekh oo extension soo fadhiistay aan noo madlan. laakiin annaga muxuu noo yahay? qadcas uu noo yahay. maxaa kaloo qadcas noo ah? doorasho iyo dastuur dalka kala qaybinayo ka mid manihi. doorasho iyo maxaa niri? dastuur dalka lagu kala qaybinayo qayb kama nihi. qoladan saaxiibada ee xukun joogto oo madaxweynaha u weyn yahay, dalna waxay ka yaqaanaan xamar, dowladnimona waxay u haystaan boob inay tahay dhul. kulama jirno. madasha haddaan nahay kulama jirno. midnimo Soomaaliyadaan rabnaa, Soomaali kala maqan isku raadiyaan rabnaa, hantida la boobayo ee qaranka Soomaaliyeed ka soo horjeednaa, dowladnimada loo haysto inay dhac iyo boob tahay yaan ka soo horjeednaa. bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in aysan sheegnay awooddeeda ay soo ceshato. arrintu gabagabadii arrintu ma aha khilaaf doorasho iyo dastuur siyaasiyiin u dhexeeya. waxaa halis ku jira jiritaankii dowladdii jamhuuriyaddii saddexaad halis ku jirta. inay kala tagtoy halis u tahay. damac awalna waxay ku duntay damac nin, haddana waxay ku kala tegi rabtaa damac shaksiya ku kala tegi rabtaa. adduunkii aan naqaane maaha. adduunkii aan naqaane maaha. waa adduun saa la socotiin 6 head of state and government, prime minister, madaxweyneyaal Yurubiyaana ee White House-ka hal hadal u tagayaan inay madaxweynaha Mareykanka soo qanciyaan. adduunkaasaan joognaa. adduun waxaan joognaa go-aanka saacad lagu gaari karo. adduun waxaan joognaa oo soo noqday conflictidii statuska. yiri markii dagaalkii labaad qaboobaa dhamaado Mareykanka oo guuleysto adduunkiina parallelka oo noqdo kaliis uu ka talinayay. Mareykan iyo reer galbeed waxay ishaayeen non state actors wax la yiraahdo, argagixiso iyo dad aan dowlado aan ahayn actors dowladeed ishaayeen. maanta adduunku wuxuu ku soo noqday adduunkii conflictiga dowladaha u dhaxeeyo ku soo noqday. Soomaaliyana maanta meesha ay joogto waa meel aysan dowladu wax iska dhici kartaa noqon karin. lana doonayo jamhuuriyaddii in la kala diro. saas daraadeed haddaad ganacsato tahay, haddaad aqoon-yahan tahay, haddaad professor jaamacad tahay, haddaad arday tahay, haddaad suxufi tahay, haddaad sheekh tahay, mas-uuliyadana saaran. doodaana mid u dhaxaysa xasan sheekh iyo mucaaradkiisa maaha. waa dood ah ma sii jiraysaa jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya ma sii jiraysaa waa doodan hortaal. taasaan u baahanaa inaan si serious runtii aan uga fekerno. nimanka duurka ku jira argixisada ah dooda ka dhex socota waa ogtihiin. tii hore way ka bedelanta. adduunkani
waa ka bedelan yahay kii hore saan sheegay ciidanka amisomna waa markay ugu tira yaraayeen Soomaaliya joogaan waliba aan funding iyo dhaqaale loo haynin ugu sii masruuf hadday madaxda dalka ku tala galeen inay sidii Ashraf Qaani diyaaradda raacaan dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay dalkooda ay badbaadsadaan oo ay ka badbaadsadaan koox yar oo dhigmiirada oo rabta inay dadka Soomaaliyeed iska hor keento waa maasantihiin wixii su'aalan diyaar u nahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.